booliska dalkani koonfur Afrika ayaa xabsiga dhigay 3 wiil oo Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay lug ku leeyihiin dilka wiil Soomaaliya kan kala shaqeynayay. Wiilashan Soomaalida ayaa sheegay in wiilka geeriyooda uu dhex jiifay dukaanka dhexdiisa, balse iyaguna ay jiifeen qolka dambe ee dukaanka. Waxa ayna sheegeen inay arkeen aroortii hore ee saaka meydka wiilkani oo rasaas ay ku taalo. Allah u naxariistay marxuumka oo lagu magacaabi jiray Saciid Faarax Haroon waxa uu ku geeriyooday da'da 25 jir sida ay u xaqiijiyeen TV-ga Home Cable ehelada wiilka geeriyooday iyo wiilasha xiran oo ehel. wiilku meesha waa dukaan oo qol dambe leh, saddexda kale qolka dambe jifeen, waa rag iska dhalinyaro ah. Isigana wuxuu jifay albaabka weyn oo customka ka soo galaan. kadib qoray isku yeelna uu jiraa marka macnaha isiga xabada isku dhuftay iyaga xabada macnaha ku dhuftay waa la kala garan laayay. booliski maxay leeyihiin? booliski horta ninkii guriga wacay oo inta aan gaarin meeshii ninkii uu sheegay wuxuu leeyahay ninkii iyaga dilay raggan macnaha raggan magacayga aniga waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamuud Cabdille. walkana oo reerkana ka dhintay weeye rag dhalinyaro iyo asaga ayaa dukaanka wada waardiinayo ka wada shaqeynayay isla markaas dhalinyaradii noo sheegeen waxa dhacday inuu asagu baarto hore kaligiis jiifay isagoo maaragta diyaar ah baarto hore waxaad u la jeedaa dukaanka dhexdiisa inuu seexdo asigu waa isla dukaanka dhexdiisa wiilasha kalena ay baarta gadaala jiifeen oo ilaa cabaar isu jirta. wiilashu waxay noo sheegeen annaga in arrintu sidaas ay ku dhacday oo maaragta dhibka gaaray wiilka uga mid xag Ilaahay ka yimid uu yahay. ayaguna aysan waxba maaragtay ugaalaha aysan kala hayn. isla markaas wiilkii oo dhintay ayaa subaxdii wiilashu soo tooseen wasay noo sheegeen. yarkii salaada subax markay dukada maageen waxay arkeen yarkii xalay dhinaca kala jiifay oo dhintayba oo maaragtay milyo macada dilkani wiilka Soomaaliga loogu geystay dukaanka dhexdiisa cidda ka dambeysay, balse arinta ayaa si adkaatay markii booliska ay ku dhex arkeen dukaanka dhexdiisa bistoolad sharci darro ah, waxaana cabsi fara badan ay ka muujinayaan ehelada wiilasha xirxiran in booliska ay u arkaan in dilka ay ka dambeeyeen 3 wiil ee u xiran. Cabdixakiin Ibraahim Cawaale, TV-ga caalamiga Home Cable, Koonfur Afrika, magaalada Johannesburg.